ما أدري كده أنا. وهو حمدي عبد أحمد أو مر فرحسن مرنا مروجيسن waxay ku faraxsan tahay nolosha canugeeda laakiin waxay ka murugsan tahay marxaladda uu ku nool yahay qoyskan xabsi ku yaala Sacuudiga ayaa looga reebtay wiilkooda Salmaan waxaana loo sheegay in markii dambe in uu geeriyooday balse isaga oo 9 jir ah ayaa lagu arkay baraha bulshada isagoo adeega ka ah xabsi ku yaala dalka Sacuudiga Aabe Axmed Saalax oo sawirka wiilkiisa ku dhagsaday bajaaj uu xamar uga xamaasho ayaa ka sheekeynaya qisada canugooda geysay xabsiga Sacuudiga ku yaala xaqiiqadii barbalaamka iyo dulmiga ugu horeeyay waxa la igu sameeyay waa leeyahay Saalax Sine Yuusuf farta ayaan taagay markaas waxa la keenay warqad oo ku qoranta laba sawir awal bas saddex ilaa markii hore ani labadii carruurna la sawir saddex sawir ayaan walaalkii Jiino sawirka wiilka ayaa laga jeexay xaqiiqadii waxa ila noqotay arin aad iyo aad u murug badan maxaa yeelay waxaan dhahay wiilkii aaban markaas ay ugu jawaabeen isfoodka ay galeen wiil maanu dhiibatay mid wuxuu u yiri cunuga ma ku hayn wiil qosol ay galeen gabadhi marka gabadhan yar Salmada had ii joogto ayda 2 sano jirto wiilkan wuu ku siira cumrigiisa 8 bilood 9 bilood cunuga jiray Salmadeedii xanuunsan afarta laga saar waxa lagu yiri hadii aad gabadhaada iyo adiga aad bixisan faliya tafadal hadaad bixeenin shabaqa ka soo baxdo u jeedaa gal xaqiiqadu waa dareemi kartaa marka qof sababtu waa weydiiyaa waxaan dhahay aniga laba cuniga iga qaadeen hal wiil ayaa iga maqan gabadh wiilkayga aabay saddex qof aan wax xasuustaa saddexdaas qofood way isku dhiibeen waxay dhaheen yaa u dhiibato cunug maano haysa qosol ay galeen marka waan dareemay in oo marka meeshan dulmi oo ka socdo waxaan dhahay ma baxayaan go'aan qaatay way waa dareemi kartaa naf laga matigi karo bas gabadheeda aan iska haystay meesha shabaqiyaan ku laabtay waxaan dhahay cunugay aanoo nolol iyo geeri aan meel aan ku ogeyn ma baxayaan dhahay maxaa yeelay kama tigi karta naf sanadku waxay aad 2010 ayay aad wax xasuustaa wiil bishii Ramadaan ay aad bishii Ramadaan ayay ahayd cunuga 9 bilood 8 bilood gabadhan waxay jirtay 2 sano waa ad ilmo aad u yar caloosha isku banay ay ahaayeen aan baxayda go'aan qaata xabsiga shabaqiyaan ku laabtay run ahaantii marka shabaq isbuucan ku jiro gabadhiga xanuunsatay ay gabadhiga shubin intay iga dhac marka xaqiiqada qof bini aadan ku daryeelin shabaqana isaga jirtid marka dambe ana go'aan waxa ku qaatay cid bini aadan ka daryeelaysan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga waxa ii soo baxda marka intii maanta wiilka afli wax ku jira hadii maanta gabadhin meesha ay kaaga dhimatan xaqiiqada waa tala aad u xun Ilaahay ayaa tala saartay warqadeedina waa haystaa bis waxaan dhahay ogolaan dhahay gacanta si xoogan ay galay soo qabtay inay gabadhii yariistan cusaan u wato airportka la keenay waxa igu yaab badneed airportka markii la keenay askariga aniga i wado diyaarad agta ilaa markaa bixiyay askariga ku diyaaradan askari kala agtaagan warqadeeda marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodaan wato warqada waxa saddex sawir waata ay jeexeen laakiin waxay iloobeen saddex magac oo meesha ila Salmo iyo Salmaan iyo Saalax saddexan ku qorneen marka diyaaradda aan istaag askari warqada aniga aan lahaay markii loo dhiibay askari warqadii uu fiiyay wuxuu yiri meeshan 2 sawir ku taal saddex magac aan ku qoran aabay cunuga saddex qaab oo dhah bas Ilaahay wuxuu qadaray askari aniga wada kii diyaarad agtana garab ka qabto gooni oo la baa wuxuu yiri waxa isku soo sheegay Allahu a'lam Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa isku soo sheegay marka aniga gabadhii si qadan qadis ah diyaaraddan ugu soo saaray hooyo Xamdi ayaa garab weydiisatay dawladda federaalka iyo qof walba oo ka caawin karta sidii wiilkeeda ay u heli lahayd waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliya hooyo dhibaataysan ahay waxaan ka codsaa madaxweynaha Soomaaliya hooyo inkastay dhaqan tahay ubad waa isii Ilaahay alxamdulillah waa dhaqanahay hadda waxaan rabaa ubadkeyga hadii nolol iyo geer wixii lagu arkayo inuu madaxweynaha ii soo saaro meel waliba oo joog maqalkeyga iyo muuqaalkeyga hadoo arko madaxweynaha Soomaaliya intaas soo sano waa uurkeyga iskaga qarsaay dib kale ima haysta hadaan waxay salahay amba awood u lahaa waa soo saar la Ilaahay awood iska lahan inta ka sokaysan madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsanahay inuu wax waliba oo awoodiisa ay tahay maanta Soomaaliyana dad oo ajnabi imanihin waxaan ka codsanahay madaxweynaha Soomaaliya mar labaad inuu ubadkeyga xalaashay nolol iyo geeri wixii uu ku harko oo noo soo saaro xuquuqdeena oo noo soo dhaciyo qoyskan hadda qaxooti ma aha oo dalkooda ayay ku nool yihiin waxaase reerkan yar iyo weynba ay tabayaan Salmaan yare tani waa Salma Saalax oo la dhalatay wiilka la yiraahdo Salmaan Saalax oo ku xiran dalka Sacuudiga sida la sheegay haddaba Salma xilligaasi
waxa ay ahayd da-deeda 2 sano jir laakiin hadda waa 11 sano jir wiilka maqan waa da-di ka yareed haddaba maxay markaasi hadda dareemaysaa magacaaga Salma Saalax Maxamuud madaxweynaha qaranka Soomaaliya waxa ka codsan lahaa in walaalkay ii keeno mudan farmaajo saacada maxaa u baahnaa inta la dheedheelo Maxamed Yaxya Jinow 5 Somali TV